Khaatume State of Somalia. Waxaan idin leeyahay welcome, soo dhawaada. reer Khaatume waxay noo soo diyaariyeen program aad u qurux badan. Marka inta aanan programka guda gelin waxaan jeclaan lahaa in maadaama aynu dad muslim nahay aynu ku furano aayadaha quraanka si inoogu akhriyo aayadaha quraankana waxaan jeclahay inaan u yeero xaaji cabdi raxmatullaahi wa barakaatu kulligiin idinkoo rag iyo dumarba isku dhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول. قرآن كاك بعد وحا إيرا ولا ليال وحا آن إذن فريا نفتي لأي نفتي نبعان فريا وحوي إلهي داعب نمد إلهي إنينو داعب النقرنه aynu ogaano inaynu dhimanayno oo layna weydiinayo xisaab oo garbaheenna ay saaran yihiin laba malag oo qoraya wixii aynu qarsanno iyo wixii inaga muuqdaba. waxaana laynoo dhiibayaa maalin aynaan waxba ka qaban karaynin. ilaahay ha laga cabsado, qalbiga ha la wanaajiyo. dadweynaha sharafta leh isugu yimi xafladatan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Ottawa ee sharafta badan waqtigoodii ku soo lumiyay inay nagala soo qayb galaan xafladatan ee sanad guuradii saddexaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. inta markaan ka gudbo waxaan mahad gaara aan u mahad celinayaa gabdhaha reer Khaatumo ee soo abaabulay xafladan quruxda badan ee aad caawa madasha aad fadhidaan ay ka muuqato. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. waxaan kaloo u mahadnaqayaa guddida jaaliyadda Khaatume ee Ottawa iyaguna ku dadaalay in ay la shaqeeyaan gabdhaha soo abaabulay xafladan oo aan anigu ka mid ahay Axmed Kayse, Maxamed Soofe, Nicmiye Farxdo ay ku jiraan laakiin dee gabdhaha ay caawa xaggooda ka tirsan yihiin. intaa markaan ka gudbo uma soo istaagin inaan hadal badan aan caawa halkan ka idhaahdo. waxaad ogtihiin Khaatumo meesha ay marayso. maamulkan waxaa loo sameeyey inuu Soomaali isku xidho oo waxaytu Soomaali lafdhabarkeedii waayo Soomaalidu waa dad qura, waa dad isku afa, waa dad isku diina, waa dad isku dala, mana kala maarmaan. sidaa darteed markii aanu aragnay inaan Soomaalidu kala maarmin waxaanu ku dadaalnay inaanu lafdhabartii ama hooyadii Soomaaliyeed noqono oo aanu isku hayno Soomaali oo aanan kala kahayn. halganka labaad ee Khaatumo ee ay maanta gacanta ku haysaa waxa weeye midnimada Soomaaliyeed, isku xidhka Soomaaliyeed. Khaatumo weeye diiday inay kala go'do Soomaali. geedku xididka ayuu ku baxaa, xidid la'aan geed ma baxo. waxaan odhan lahaa Khaatumo waa xididkii Soomaaliyeed. bili-aadmigana lafdhabarta ayaa u ah laxaad, waa laxaadkii Soomaaliyeed. ayaan anigu odhan lahaa wixii taariikhda hayaana waaba hayaa, wixii aan haynowna ogow haddaba intaasi la soo maray.
wax kasta oo la maamula ama dawladni ha ahaato ama qoyska gudihiisa ha ahaato turxaan ma waayo turxaan aad u tiro badan qodob badan ayaa hortaa la Khaatumo balse daacadnimada iyo aaminsanaanta ay aaminsan yihiin shakhsiyadooda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ayaan guul daraysanayn marna taas aan leeyahay walaalayaal waxaan yeelan daalay to ugu daran ee beeshan Khaatumo haysata waxa weeyaan duqoodii nabadda iyo magta iyo maslaxada inuu ka shaqeeyo ay ahayd ayaa miiska aqoonyahankii iyo waxgaradkiiba la fadhiya the problemka ugu weyn ee haysata horta taas weeye taana waa ka gudbaynaayo madaxweyne inooga baahan inaynu gacan siino aqoonyahana caalamka laga yaqaano gudaha iyo dabada maanta inuu madaxweynaha oo ay Khaatumo meeshii ugu cuslayd qabsatay oo ah in Soomaaliland midaynana ba tiraahdo marka waa arinta ugu adag hadda oo la sameeyo waana idinku raacsanahay laakiin hawl badan bay u baahan tahay hawshaas baa marka waxaan jeclahay si aan ila tahay meesha laga galayo marka waxa ugu horeeyo oo markii caawa dabaaldega la dhameeysta biri in lagu dhaqaaqa ah waxa weeye in laga shaqeeyo cadaalad oo haddii aad adigu xataa wax ka maqayn raasanaysa si cadaalad ah ku raasatid dhiig aan lagu daadinin laakiin si cadaalad lagu raadsado taas marka waxay dhalin doontaa nabad markii la helana waxa ku xigta midnimada aan raadinayno oo qabsateen adinku oo ma arkin wili yani ururada kale iyo dadka kale oo isu yimaado oo sidaan ay oga yani waxa ugu horeeyay tilmaamay ay tahay in midna Soomaali la isu keeno marka juqraafi ahaan meesha Khaatumo kaga taalo Soomaaliya iyo markaad eegtid iyo fikirkaas iyo markaad eegtid halgankiisa Maxamed marka intaas oo isku duubtid way macnaha waa buddigay u tahay Khaatumo in ay tahay meesha waa iska garan waa natural inay dadkaas dhahaan midnimo Soomaaliyeed baan rabnaa sababta macnaheeda si fiican u fahansan yihiin marka ka soo qaybgalkaas nagala soo qayb gasheen xafladda Khaatumo waxyaalaha aan rabay inaan wax yar idinka sheego dawladdii ku meelgaalka ahayd ee Khaatumo iminka la isu bedeshay dawlad rasmi ah waxyaalaha ay qabatay waxa ugu horeeya horumarka dadkeedu u baahnaa lama soo wada koobi karo laakiin waxaan isku dayayaa inaan dhowr qodob idinka taabto waxyaalaha ay qabatay dawladda Khaatumo tii ku meelgaarka ahayd iyo ta rasmiga ah ee iminka dhalatayba waxa ugu horeeya 2 airport ayay dadkeeda u dhistay 2 airport oo baahi aad u ballaaran ay reer Khaatumo u qabeen waxaa dhici jirtay mararka qaar inay waayaan meel ay ka dhoofaan madaxda reer Khaatumo nasiib wanaag iminka meel ay u madax bannaan yihiin ayay samaysteen oo 2 airport ah airportkii ugu horeeyay ee Taleex waxaa ka soo degay wafdi uu hogaaminayo xurmad leh garaad jaamac garaad cali waxaan moodaa inay maanta ay soo noolaanayso Soomaalidii waxa maanta muuqda aan arkayno waxay ka mid tahay yani iftiinkii soo socday ee Soomaali maanta ay ku nuurisay waxaa dhacda shicibkii inuu dan moodo si kale oo muxuu ahaa marka qaarkood aan wanaagsaneyn oon arkayno maanta hadalhayn baan ku soo qabsanayaa Mandela uu yidhi wuxuu yidhi operationka dowladda samaynaysa operationka ummadda ku samaynaysa ayada maxaan ku rahdaa hubkay ku dagaaltamayaan iyo waxay ku dagaaltamayaan ayada maxaan ku rahdaa u doorata marka qaar waa nasiib darro wali waxaan is weydiinayaa maxaa ku khaatimeeyay mise waa khaatimaysan tahay arrintu waxa weeye marka anigu sida ay muuqata waanan khaldanaan karaa idinkuna inaad is weydiisaan baa mudan arrintu siyaasad maaha qabiil maaha arrintu
aqoon la'aani waa iftiin la'aan caruurta reer khaatimo ee Soomaaliya sanaag iyo cayn jooga waxbarashay u baahan yihiin dalka intiisa kale caruurtu sida waxbarashada u haystaan bay iyaguna xaq u leeyihiin caafimaad la'aan waa nolol la'aan dumarka reer khaatimo ee dhiigbaxa ku dhinta jidka intay ama burco u sii socdaan ama garow u sii socdaan xaq bay u leeyihiin inay helaan dhakhtar iyo daawo nabad la'aani waa dowlad la'aan shacabka reer khaatimo ee si walba nabad u doonaya xaq bay u leeyihiin inay doortaan dowlad dimuqraadiya oo ay iyagu u madax bannaan yihiin iyagoon Maraykan iyo shisheeye iyo Yurub iyo Amazon toona aan ka helin caawimo haddaynu haddaba intaa isku raacno dhammaanteen waynu khaatimaysanahay rag iyo dumarba inteena caawa halkan fadhida waxaan ku soo gabagabeynayaa diinta islaamka ee aynu ku abtirsanaa waxay tiraahdaa qofka arrimaha muslimiinta aan ka danqan muslimiinta kama mid aha waxa ay danqisay hooyaan ahay macallimadna waan ahay caruurta xuquuqdoodu adduunka dhan baa u dagaalama inagu muslim baynu nahay waa inaynu caruurta xuquuqdeeda u dagaalanaa marka dhibaatada haysata caruurta ayaa ay khaatimaysay dumarka cisbitaal la'aanta iyo dawada iyo dhakhtar la'aanta haysa ayaa ay khaatimaysay xuquuqda bini aadamka ee maanta xaragadeeda iyo nabadeeda aynu halkan ku fadhino inay iyaguna helaan ayaa ay khaatimaysay Yeah.